doonaysa mobile qiimihiisa ka hooseeya $200 quality-giisana u dhigmo ama ka fiican yahay mobiladii aan hore u soo review gareynay ee A54 ama A34 mobilkan quality ahaan iyo camera ahaanba wuxuu u dhigmi karaa ama la barbar dhigmi karaa mobilada qaaliga mobilkan qiimihiisu wuxuu ka hooseeyaa $200 san ku sheegay waliba muraasad waxaad kaga helaysaa qiimo ka hooseeya $180 hadda mobilkan shirkadda Samsung mobilada ugu dambeeyay ee soo saarto sanadkan gudihiisa waliba bisha April ay imika la soo dhaafay mobilkan saad ogaatid isaga oo dhamaystiran reviewgiisa fadlan videogan kaga bogo haddaba saan idin sheegay mobilkan wuxuu ku jiraa suuqa 2 bilood oo kaliya quality-giisa iyo camera-giisana waxa u dhigmaan mobiladan hore u soo review gareynay mobilkan waa Galaxy A24 oo sanadkan gudihiisa soo baxay haddaba saan aaminsanahay anigu mobilkan quality-giisa waxa uu ka fiican yahay ama ka sareeya lacagta la siinayo oo suuqa ku jiro shirkadda Muraasi waxaad kaga helaysaa lacag ka hooseysa $180 sida ugu dhaqsiyaha badan shirkadda Muraasi uga soo gado mobilkan ay la daawo reviewgiisa oo dhamaystiran videogan like share-tuna waadiga dhankaaga haddaba qodobkeena koowaad iyo build quality-ga mobilka hadaan u guda galno marka aad ku samaysid unboxing ku samaysid mobilka waxaad arkaysaa in mobilkan uu ku yimi kaliya kartoonkaas dhuban oo ku jiro USB kaliya sad ogtii mobilada dambe ee shirkaddan soo saarto laguma soo diro charge adapter-ka ama madaxa charge-ka laguma soo diro kaliya waxay ku yimaadaan oo kaliya waxa weeyaan waa USB type C gaas kaliya ku yimaadaan waxaa mobilada dambe oo dhan maca iPhone-ka iPhone 15-ka xataa charge-kiisa inuu noqon doono USB-C marka USB-C gaas baa la socda waxaan soo saarnaa marka mobilka markaad aragtid daftarkiisa bacdaas uu ku jiro oo aad ka soo saartid waxaad arkaysaa in xaggiisa dambe ay tahay aad ay u tahay smooth u tahay arkaysaa ring light-ka iga hor yaala aad caadi ugu dhex arkaysid inuu muraayad yahay laakiin shaashadiisa hore waa tan xagga dambena waa noocaas labada waxa moodaa in ay shaashad caadi ay tahay xagga dambe waa smooth farahaaga aad ku taabatid laftirkeeda caadi looga dhex arkayaa saddex kaamarood la weeyaan flash wata sidoo kale fingerprint-ka wuxuu ku leeyahay mobilkani halka lock screen-ka ama logo laga geliyo ayuu ku leeyahay mobilkan halka hoose wuxuu ku leeyahay halka earphone-ka laga gelinayay iyo meesha samacada oo kaliya iyo halka charge-ka xagga sare wax samacada kuma leh macnaha mobilkan wuxuu ku yimaadaa hal speaker oo kaliya ayuu ku yimaadaa hal speaker oo kaliya ayuu ku imanayaa shaashada xaggiisa dambe hadii aadan cover u isticmaalin wuxuu ka noqonayaa dheerta ayuu ka noqonayaa sad arkaysid farahayga dib ka muuqda build quality-giisa aad u qurux badan yahay design ahaan qurux aan caadi ahayn weeyaan mobilka marka loo eego qiimihiisa la siinayo suuqa ku yaalo si fiican ma garanaysaa ayaad u arkaysaa xaggiisa dambe inay u dhalaaqayso marka mobilkan qurux ahaan waxaan is leeyahay qiimihiisa iyo quruxdiisa malaha quruxdiisa xogaa yar sareysa sadarteed mobilkan waxaan is leeyahay uu qalmi karaa inaad siisid lacagta uu ku joogo suuqa inkastoo muraasadka galaysa suuqa mar walba ay ka hooseyso qiimayaasha suuqa ku yaalo muraasadka galaysa qiimo ka hooseeya $180 qodobka labaad ee display-ga markaan eegno mobilkan display-giisu wuxuu ku yimaadaa Super AMOLED waa iskriinada ugu fiican imika ay soo raaciso shirkadda Samsung mobilada ugu dambeeyay mobilkan hertz-kiisa ama refresh rate-kiisa wuxuu gaarayaa 90 hertz inkastoo mobilada ugu fiican ee Samsung soo saarto uu gaaro 120 mobilkan saad ogtihiin qiimihiisu $180 ka hooseeya sadarteed 90 hertz iyo qiimihiisa marka la soo eegana 90 hertz-kaas ama refresh rate-ka aadka u sareeya ayaan isla yaabaa ka yar fiican sidoo kale cabirka mobilkan ama size-kiisu waa 6.5 inch xataa miisaankiisu aad u fudud yahay qaaditaankiisa xataa ka fargalisid aad u fudud yahay marka cabirkiisu waa 6.5 inch weeyaan sidoo kale mobilka resolution-kiisu waa 1080 pixel weeyaan macnaheedu waxa ku daawan kartaa fiidiyoada quality-gooda aadka u sareeyo aad ku daawan karaysaa waliba si smooth ah laakiin hadii video 2K ama 4K lagu duubo aad geysatid waxa laga yaabaa dareentid culays yar ama refresh rate-kiisu waxa yar cuslaado marka waxa loogu talagalay fiidiyoada full HD-gana ku daawan karaysid haddaba qodobka saddexaad iyo performance-ka mobilka hadaan isla eegno mobilkan maadaama uu yahay mobilada ugu dambeeyay imka soo bax waliba 2 bilood kaliya oo suuqa yaalo wuxuu la socon doonaa version-ka ugu dambeeyay imka socda oo ah Android 13 waliba wuxuu ku yimaadaa system-ka ama software-ka One UI 5.1 haddaba waxa cajiib ah in mobilka ugu qaalisan ee soo saarto shirkadda Samsung oo noqonaya S23 Ultra laftirkiisu uu ku yimaado One UI 5.1 mobilkana oo qiimihiisu ka hooseeya $180 oo kaliya isna wuxuu ku yimaadaa One UI 5.1 sadarteed mobilkan qiimihiisa iyo software-ka mobilkan soo eegno waxa aad u qaalisan software-ka mobilkan sidoo kale chipset-ka mobilkan waxa uu ku yimaadaa MediaTek MT8781 ama MT8780 chipset-ka waxa lagu tilmaamaa noocyada ugu fiican mobilada mid range-ka sidoo kale mobilkan hadaan eegno memory-giisa ama RAM-kiisa mobilkan wuxuu ku yimaadaa 128GB oo kaliya ama 128GB oo kaliya ku yimaada laakiin RAM-kiisu wuxuu ku yimaadaa 4GB 6GB iyo 8GB haddaba hadii aad gaartid 8GB RAM-kiisu yahay 107GB chipset-kiisuna uu ahaa MT8781 waxaan hubaa inaad ku ciyaari karaysid gaming mobileska quality-gooda aad ku sareeyo sida PUBG Call of Duty
iyo Apex Legends ama nooc la midka ah hadaba qodobka afraad iyo kaamirada moobilkan isla eegno moobilkan sidaan hore idin sheegay oo markan aan ku soo celinayo wuxuu ka fiican yahay kaamira ahaan xataa moobilka aan hore u soo review garanay oo waliba qiimihiisu aadka uga sareeyo kan A34 moobilkan sida arkaysid kaamiradiisu waxay ku timaadaa saddex kaamirood la weeyaan kaamirada ugu sareysa oo noqonaysa main kaamirada ama wide kaamirada waxay ku timaadaa 50 megapixel kaamirada dhexe waa ultra wide waxay ku timaadaa 5 megabyte oo kaliya kaamirada ugu hooseysa waa macro camera oo lagu sawiro waxyaabo aadka u yaryar laftirkeedu waxay ku timaadaa 2 megapixel oo kaliya moobilkan kaamiradiisa dambe fiidiyowga aad duubi karayso waa 1080 pixel ama full HD sidoo kale moobilkan selfie kameradiisu kama dhacdo moobilada aan hore u soo sheegay fiidiyowga duubi karaysana waa 1080 ama full HD sida kamerada dambe oo kale qodobka shanaad iyo batteriga muuqdan isla eegno moobilkan batterigiisu wuxuu ku yimaadaa 5000 mAh sida ku caan moobilada Samsung-ka moobilkan charge-ka uu support gareeyo waa 25 watt laakiin maadaama uu san ku iman madax charge ama uu ku yimaado USB oo kaliya waxaad u gadan karaysaa chargerada madaxa uu yahay 20 watt oo kaliya kaasoo kugu buuxinaya fast charge saacad iyo badh gudaheed hadaba gunaanadka muuqaalka da isla eegna moobilkan kaamiradiisa batterigiisa iyo performance-giisa iyo build quality-ga dhismaha moobilkan quruxda badan moobilkan san aaminsanahay anigu uma qalmo qiimaha uu suuqa ku yaalo way performance-giisa iyo systemka iyo software-ka uu isticmaalay moobilkan ayaa aad uga qaalisan qiimaha ku yaala suuqa hadaba review-gan hada si fiican uga bogatay fadlan u share garay saaxiibkaaga u baahan inuu gato moobil ama ku soo meeshay garay comment-iga like-ta iyo share-tuna waa dhankaaga mar kale salaam